السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا يوتيوب channel تكسوم 141 ايدو قبرتين برنامجة كسابسون وصاب تريكسكا يو سوشيال ميديا هبا برنامج كلمانتنا وحنو كهالي دونا اما دي كتسين دونا سولو اوغادو مسيج اما وصاب مسيج لغو صادري وانت انا دي كسو غارن لغادي ليد جري سينو كسون هايبا اصحابتين وحي نو صادر المسيجيو المسيج مركا قنعين وايو وحي سمين انت انا دي كسو غارن بلغادي ليد جرينيا adiguna marka message-kii ma arki kartid markaas aad u ogaato message-ka laga delete gareeyay waxaad raaci doontaa steps-kan aan hadda marayo marka waxaad tagi doontaa Play Store-ka geli kabacdi waxaad soo download doontaa application-ka la yiraahdo WhatsApp Remover application-ku markuu joogo Play Store-ka sidoo uu eegyahay waa application-ka green-ka ah ee leh loogada cadaanka iyo green-ka ka kooban icon-ka recycle bin-ka wax weyn ma application-ku si easy kugu soo download gareysmaya installation-kiisuna install baad ku dhaafaysaa application-ku markuu ku soo dhameystirmo ku soo download gareysmo open baadihi kabacdi soo soo baxaya marka application-ku marka template-kan uu leeyahay oo loo ekeysiyay WhatsApp-ka aad isku eegyihiin marka waxa halkaas kugu yaala marka magaciisa laga imaado detect iyo WhatsApp detect micnaheedu waxa weeyaan message-ka ii qabo marka message-ku qabanayo waa message-ka la delete gareeyay oo bartan ku qabanaya oo adiga iyo qofka message-ka ku soo dirayba kana idin dhaxaynaya oo adii message-ka intuu soo diro uu delete gareeyo intaan adiga ku soo gaari kana ku sii qabanaya xagan WhatsApp ay ku qoran tahayna waxa ku soo dhigmaya message-yada caadiga ku soo galaya mar haddii isla aragna marka template-ka iyo qaabku eeg yahay application-ka inuu soo shaqeynayo hadda waxaanu eegi doonaa bal inuu sidii runta ay ama si sax ah u shaqeynayo oo inoo qabanayo message-ka waxaan ku noqon doonaa mobile-kayga saynu aragno halkan iigu jira laba WhatsApp mid waa WhatsApp business mid waa WhatsApp-kayga caadiga markaas waxaan ugu talagalay WhatsApp business-ka oo number kale aan ku soo samaystay in isagu inoo soo diro message-ka oo uu ka dhigmo qofkii dabada inooga soo diray marka kan ingeli doonaa message-ka marka WhatsApp-kayga caadiga soo diri doonaa hello ayaan soo diray marka message-ka waxaan soo diray WhatsApp-kayga caadiga baan soo diray message-ka marka uu ka baxay kan anigana uu soo galay message-kii waynu eegi doonaa inuu soo galay in kala ka soo arkanaa message marka uu soo galay anigana kabacdi waxaan sameyn doonaa delete gareyn doonaa hadduna xataa ku soo gelin marka internet-ka soo gasho message ku soo galaya laakiin waxaan sameynay imika delete gareeyay message-kii delete markaad gasho waxa ku soo baxay saddexdan option waa delete for me cancel iyo delete for everyone oo awal wuxuu ahaan jiray WhatsApp-ku laba option oo kaliya waa delete iyo cancel hadda tan saddexaad lagu soo diro delete for everyone oo micnaheedu yahay anigana iga delete garay qof kale ka delete garay marka tan dooran doonaa anigana iga delete garaynaya qofkii kale ka delete garaynaya marka si inuu ogaano inuu qofkii kale ka delete garay waxaanu sameyn doonaa waxaanu geli doonaa qofka kale WhatsApp-kiisa waan geli doonaa ama WhatsApp-kayga caadiga ah waan eegi doonaa message-ku delete garaysmay wuxuu ku soo qoray this message was deleted marka halka taagantay ma arki kartid laakiin hadduu kugu jiro application-kii waxaad ogaanaysaa uun qofka ku soo diray magaciisa imika halkan oo kale maanada rakoon baan igu qoran laakiin adiga magacii qofkii ku soo diray message-ka kugu soo qormi doona hebel oo kale ku soo qormaya waxa sameeyay hebel ba message soo diray iga delete garay halkii baan tagi doonaa buffer loo dhahayay application-kaaga markaad kali garayso markaba saas kugu soo tuuraya detective muxuu qabtay maanada rakoon baa soo diray message ku soo dirayna waxa weeyaan hello buu soo diray markaas saasaan u eegi doontaa maanada rakoon baa soo diray hello buu soo diray markaas saasaad ugu ogaan kartaa message-ka ku soo diro qof ee uu ka delete gareeyo inta aanu soo gelin adiga hadda halkan kala tagtana message-yadii lagu soo diray marka message-ka la soo diray wuxuu ahaa hello quraatuha hadduu video-gan ku cajabiyo oo aad ka faa'iido qaabka loo ogaanayo fadlan subscribe like and share